أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضمان ولا لها قيمة هي قايها له كحنا channel كنا فاطمة منى channel وحند الله وقت والباء خير كيسية بركديسية برواقديسة أيام الله رحمك إيدين ويدين يا ميل والباء وضافها الدنيا ذكر الشوكتان يحل والباء وفيديو جني إيدي سوقارو ساكا وحن دعوضي مركا برنامج كش اللي قصده دايب تي في قاليرا يونيفرسال تي في برنامج كان هو برنامج تضباط لا مجلس سابا ليره ذا برنامج كفلقين تضباطك دورك وحو كهدليي محو جورك وايهن دنبه وبربرة هذا برنامج كان رنتي وبرنامج تضباط لا وحيابا بدن أو آدو مهمة ورنتي أجعلان شري مرر بدن إن عن كومنت كسب بحيو ولكن عن فرصة هلين أيام هذه اللي قصده دايي لكن doodda maanta runtii waxa weeyaan doodaha iyada laftiga doodaha ay soo wada daayeen runtii dhamaantood haday tahay dadka laga tirada badan yahay laga tira badan laakiin la dhibo oo maanta tira badni wax la yiraahdo anigu ma garanayo inta kuwa kale ay magaranaysa ay isku aaba noqdeen anigu ma garanayo marka qabiilada sida gaarka ah maaragtay loo takooro waa laga hadlay oo runtii aad u mudnayd in laga doodo oo aan ka hadlo aniga laftigayga oo taa aan ka gaabiyay إذا كان رالي قليني رنتي دنبيلنا عن دريمة موضوع نوع إن أنا كهذلين لكن وحا إلهي سبحانه وتعالى وسورة قلية هذا عاوة عن بساكة إن إن هذا موضوع إن أنتن لنيرة ذا أي سوتشي سي موضوع سوحو سوتشي دي سيجار أنوش على استين أنو كهذلا هبلا دليرة أي فكر كذا قاعدة دونا أو كديان دونا أو مودي دونا سداسيني وناك تهي طب ده تروح مهمة إن dadkayga maaragtay runtii meediyada ku jirta umada la hadasha inaynu si maaragtay macquula umadii wala hadalno oo wixii qalad ah meediyada soo gala la iftiimiyo run ahaantii xilliyo badan wax dhici jirtay inaan waxa meediyada la dhaxmarayo la soo daayo inaanan indhaha iska tiro oo waxa aniga barnaamij aniga gaar ah kaliya aan ka hadlo laakiin waxa aan arkay إن أي هبانتها هاي إن لقى هذا وحي ميديا ده كتير السي أي بالانس أي نويا لنا أو إن فكر عف ما تقبل فكر ديني أو فكر معقولة أو مقرنسة جابها ثقة لدي أسوق جود بيان ثقة لدي معركة أفلاقيا إن لكن هديئات معركة إن ميديا ده كتير مسؤولية جار أي كاسارا إن التذكي وحي خلده أد كسحديد أدي قال افتقاقه إن مركب حويان ولا ليالو waxaan jeclaystay gabadhan dhalinyarada ah videoga qaybtan barnaamijku tabcan waxyaabo badan baa lagu falaqeeyay waxa lagu falaqeeyay guurkii hore iyo guurka casriga ah yani guurkii hooyooyinkeen amba dumarkii waaweynaa iyo raggii waa maaragtay hore siday isu guursan jireen guurkooda waxay ka soo mari jireen guurkooda sidoo amba u aflixi jiray iyo caqabaadka hor iman jirtay sidoo kale caqabaadka guurka casriga hadda hor timaada oo dhalinyaro gabdho iyo wiilalba maaragtay goobta ay fadhiyeen studioga ayaa lagu wareysanayay waxa kale ee lagaga hadlay gabdhaha lacagtii laga bixin jiray ma garanaysa waxa la yiraahdo geeli iyo faraskii iyo qorigii iyo hawlihii gabdhihii hore la yiri waa laga bixin jiray anu ma aaminsan gabdho badan in laga bixin jiray geela badan laakiin kulli geel waa laga bixin jiray tirado inta doontaba ha noqotee qaara laga bixin oo badan oo odayaashoodii ku geeriyoodan iyadoo waxba laga bixin laakiin lagu magacaabay oo magaciyoon maaragtay uu jireen maantana sidii sileeg ama waaba ka sii runtii yaraatayba hawshaasi hadda oo dad badaniba waxa laga yaabaa inay magaca ahaan maybe inay magacaabaan dahab iyo lacag iyo waxa meher ahaan laakiin aan hadana inta isa siisa ay yartahay ba mar walba da walba marka waxa weeyaan waxyaabo caqabad noocaas laga hadlay inay gabadhu ninkeeda adeecdo amba ninkii inuu gabadhiisa been ku soo xarigelinin iyo amba ku soo xarigeliyo waxyaabihii maaragtay waxyaabo noocaas qaladaad mujtamaca ku jiray sidoo kale waxa laga dooday amba gabadhi si qurux badan runtii soo gudbisay in ay magaranaysa dumarkii hore suugaanta ay iyo maaragtay ay ugu qori jireen waraaqo odayaashoodu markay safraan oo kale oo maaragtay ay kamid ahayd heestii hiba nuura ay kamid ahayd
oo ay lahayd markaa hiba nuura keligay sariirtan kuududaaye ma ogtahay marka heestaasi ayay gabadhi u qortay baa layidhi barnaamijka lagu sheegay odaygeediiba u qortay markaas waxa weeyaan markiiba uu soo dhoofay amba odayaal badan baa soo dhoofay sida fanaanka cabdijabbaar khaliiji uu ku sheegay inuu guri la deganaa rag badan oo soolana la odhan jiray ragga keligood wada degan maxay hayday يعني دمر كودي أين لسعونين سعودي كشقيسين كذا كدبنا إن طبعا قضاي أي جورجي كسوة الله في بيجري أو جوريه دي وصار نقضية ودم كي وصار نقضي مركا هستا أي ميت كميدي هي أي قضية جدي وصار قرتي إن مركا سلاسي أي برنامج كلاجة هاد لي جور كي هراء يجور كان دم بقى عقبات كإيو قلوا البوحي معرفتي نيجاتيف كود يا بوزيتيف كود وحالها سلاجة هاد لي هذا بقى إنما رنتي سوتشي دتي أنا في لي أنا ضد بدن سوتشي دنتو arrinteedu iyo sida u hadashay soo jiidashada kama wado inaan ka helay waxa aan ka wada waxaan u baahday inaan runtii comment aan ka bixiyo sababtana waa ogaan doontaan haddaba inantu maxay leedahay bisadaatiinu daraxada waa jeceshin waxbana ma tabcataan hadalka saas waa sama anu awood waan u leeyahay inaan tabcado maanta si adaan diidanahay inaan ku dareensiiyo inaad baahideeda aad ka fiin karin adaan diidaya inaan ku dareensiiyo inaad baahideeda ka fiin karin awood waan u leeyahay inaan shaqaysto talabaade waxaan aaminsanahay anigu waad halka inta noo yara kaadi waxay tiri anigu waan awoodaa inaan wax tabcado oo aan shaqaysto laakiin adiga oo ninkaygii bay ka wadaa waxa aan diidanahay inaan ku dareensiiyo inaanad adigu baahidayda dabooli karin I don't know fikradaasi haddii ninku uu awoodo baahidaada inuu dabooli karo adiguna aanad rabin inaad shaqaysatid oo welibana waxa laga yaabaa umul aad tahay ambaad uur leeday ambaad hawl kale ku jirtid oo aad jeclaatay inaad guriga ku nasatid odaygaaguna ku biiliyo amba haddaa ku heshiiseen labadiinu inaad noqotaan laba qof oo odayguna dibadda kasoo shaqeeyo gabadhuna ay guriga joogto oo caruurtii xanaanayso taasi waa wax dabiiciya gaal iyo islaamba dumar badan baa housewife ah oo odayaashooda dibadda uga soo shaqeeyaan iyadoo habi ku ah inay gurigeeda joogto taasi wax xun maaha labada qof waxay ku heshiiyaan wax xun maaha laakiin inaad tidhaahdid waan shaqayn lahaa waxaan u shaqayn waayay inaan adiga ku dareensiiyo inaanad adigu igu fillayn oo ka waran haddaanu runba kuugu fillayn ya ka waran haddii lacagta uu ninkaagu soo shaqeeyo ayna adiga iyo gurigii iyo noloshii kuba fillayn oo runba kuugu fillayn maxaad markaa samaynaysaa ama isaga inaad ku raali gelisid isagoo weliba isagu kugu qasbahayn guri joog ma aaminsani baa ninku dee inuu gabadhiisa ku qasbaba guri joog isaga oo u baahan inay dhaqaale ku kabto laakiin kaba soo qaadba aduu markaa haddii aad uu dhaqaalaha uu soo gala ee odaygaagu maaragtay soo shaqeeya haddaanu kugu fillayn isla mar ahaantaana cilmi iyo caqli iyo caafimaad aad ku shaqaysatid aad haysatid maxaa kuu diidaya inaad shaqaysatid maxaa kuu diidaya inaad dhaqaale gaara haysatid ma ogtahay haweenka muslimada yihiin inay xorriya maaliya ay haysato oo xor tahay inay shaqaysato iyada iyo ninkeedu waxay isku afkartaan inay gurigeeda ee macruufka iyadoo asturan oo xijaaban inay gurigeeda ka bixi karto wax baran karto shaqaysan karto heer gaari karto ma ogtahay teeda kale inantani waxa ay kusii wadaa arrintaasoo dhanba biktiri taasi waxbaba ma ahaba ya laakiin ta ka dambaysa ayaan idin dhegeysiinaya ismaqalka ayaa lagu wada joogay bay tiri waa run haddii hooyadii geeriyeysan oo naxalkii saaran uu zawjkeyga igu idhaahdo halkaa kama bixi kartid hadday ka surowdo weyn halkaa kama bixi kartid hadalkiisu waa inaan maqlo oonan ka bixi karin eega cabdijabbaar khaliiji siduu eegay kasoo tag hadal walba oo dunida waxay tidhi haddii hooyaday oo geeriyootay oo nacash ka saaran zawjkaygu bay tidhi hadduu igu yidhaa guriga kama bixi kartid halkaa kama bixi kartid bay tidhi cabdijabbaar khaliiji marka kama baxaya bay tidhi cabdijabbaar khaliiji fanaankeenna maaragtay ayaa saa u eegay oo yaabay oo waan idinku celinayaa intaa dunida yaala igu idhaaqday anigu waxaan aaminsanay baa leeday ismaqalka in lagu wada joogayo ayay tidhi waa run labada qof inay ismaqlaan is ixtiraamaan kala dambeeyaan isku tiirsanaadaan isjeclaadaan isla tashadaan ayaa lagu wada joogaya waa sax laakiin ismaqalkeedu heerkeebu gaadhsiisay inantaa
bal dhageysta haye isiyo inaad baahideeda ka fiin karin awood baan u leeyahay inaan shaqaysto talabaade waxaan aaminsanahay anigu waad mahadsantahay da udaay hadalka udaa haye maxaad aaminsantay udaay waxaan aaminsanahay anigu ismaqalka in lagu wada joogay ismaqalka in lagu wada joogay hadalku haddii hooyadii oo geeriyeysan oo naxashkii saaran uu zawjkayga igu idhaahdo halkaa kama bixi kartid hadday ka surowdo weyn halkaa kama bixi kartid hadalkiisu waa inaan maqlo oonan ka bixi karin waa kasoo tag hadal walba uu zawjkayga igu idhaahdo halkaa kama bixi kartid hadday ka surowdo weyn halkaa kama bixi kartid hadalkiisu waa inaan maqlo eega cabdijabbaar siduu eegayo wuu yaabay saasuu eegaya baarkaysaan siduu eegayo cabdijabbaar gabadha yacni waa wax cajiiba hooyaday oo geeriyootay oo nacashkii saaran hadduu ninkaygu igu yidhaa bay tiri guriga kama bixi kartid waa inaan maqlo oo aan markaa guriga joogo oo aanan ka bixin billah arrintaas maxay kula tahay arrin saxa miyay kula tahay waan idin wada dhegeysiinayaa maqlo oonan ka bixi karin waa kasoo tag hadal walba oo dunida yaalla waajibka koobaad waa odaygaaga ismaqalku waa ka markuu ka harkood oo dabacsan rumarka laisku sheegay kaama fogaanayo adoo u naxariisanay tan kale markii aan ilmo dhalo hablaha le markaan ilmo dhale shulaqa aan noqdo dee ama aan isku dhex dhaco sideed iskugu dhex dhacda waabad ogtahay haddaad isku dhex dhacdo naa kala raadsanayay sidee ishagaash isqabo dee umushuna shaahi caanaa iska ilaaliso waa shaahi caanaa aad baad mahadsantahay haye haye ka waran inuu berri toole iyadoo inta isdhuubnaysiiso gabadh buuran uu berri ka raaco علشان اسكدا baruurta iyo dhuubnida iyo isqurxinta waxay isu qurxinaysaa oo caafimaad exercise u sameynaysaa caafimaadkaaga adiga kow kama maqna meesha inaad attractive ahaatid oo ninkaaga uu wali ku arko qof soo jiidasho iyo qurux leh taasina waa wax maaragtay طبعا muhiima laakiin inaad noloshaadii oo dhan ka dhigtid uun inaad xitaa heer gaadhid inaad waalidkaaga ku caasidid علشان إناد نين رالي جلسيد نينكو وزوجكاجي قرقي سجى مسؤول كأ إلهي بقى قوامد سيي قوامد وإنه هيركيس أخد مايو إناد أدقو أضيجاجي كدم بيسيد أو وح بدن إسكو فهنتان وح والبا إسكو فهنتان وح بدن معها أو أد كدم بيسيد أو أد احترامتد أو أد هذا الكيس مقشيد يسقون أو كل تشرده أو هذا الكاجا مقلو أو ثلاثة دقاته oo aan noqotaan laba qof oo isku ra'yi laba qof oo isku wanaagsan laba qof oo isku talaaba laba qof oo aan iska hor imanahayn laakiin isla shaqaynaya guurka quruxdiisu horta waa sida calafkana ilaahay baa haya laba isjecel oo nafta isu bixinaya ayaa waxyaan inta isku fahmi waayaan ku kala taga ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkan intuu ilaahay idin kala qadaray ay isla noolaanaysaan laakiin isla noolaanshiyuhu ma waxa weeyaan qofka dumar inayna shakhsiyad yeelan inayna ixtiraam yeelan in wax walba lagula dhaco in lagu yiraahdo inay iyaduna wax walba ka adeecdo odaygeeda si inantu say sheegayso ismaqalka waa wax walba ayuu ka muhiimsan yahay haddaba maxaa la isku maqlayaa ma waxa la isku maqlayaa caasinimo hooyaday miyayna ahayn hooyadaydii 9 bilood isoo siday ifoolatay naasi nuujisay ikorisay adduunka oo dhan aniga igu jecel maalintii geeriyooto haddii aniga oo dal ka fog jooga aniga oo tigirkii haysan aan kusoo baxayay aniga oo geeridii hooyadu igu noqotay kadis aniga oo aan awoodin oo aan maxay hayday yacni ilaahay isu kaaya qadarin duruufo iyo caqabado iyo intaasoo mayl oo dhul ah ay maaragtay aanu ku kala fognahay oo ay dhacday dad badan oo safar ku maqan oo maaragtay wadamada qurbaha ku nool ayaa waalidkood loo soo sheegaa telefoon baa lagu soo dirayaa maanta waalidkaaba xanuunsanaya maalinta ku xigta waxa lagu oranayaa uu geeriyooday waalidkaagii waxa laga yaabaa xilligaa inaana tigir haysan safar lacag u haysan baasaboor haysan dad badan baa xataa baasaboor iyagoo haysan maaragtay geeri loo soo sheegaa geeridana waa taqaanaa qofkeena wiig talaagad kuguma jirayo sidaadu u geeriyoodo isla maaragtay maalintiiba waa la aasayaa saacado gudahood baa lagu aasayaa hadduu habeen geeriyoodo qofkaasi subaxnimada dambe waa la aasayaa
kama soo gaari kartid meeshaad joogtidba waa inaad ugu ducaysid waalidkaagana baarinimadiisu waxa weeyaan isagoo nool iyo isagoo geeriyoodayba bal markuu geeriyoodo ayuu baarinimada kaaga sii baahan yahay oo ducadaada iyo sadaqadaad u bixinaysid oo maaragtay aabahaaga iyo hooyadaada maaragtay hadday kaa geeriyoodaan ay kaaga baahi badan yihiin iyaga inta adduunka joogan marka iyada oo duruufo saasi kugu xeeraysan tahay waalidka hadda adduunka ku kala tagtaan waa wax dhacda waa wax adiga awoodaada ka tan badan laakiin inantu siday sheegaysaa waa sidaa si ka duwan gabadhani waxay tidhi odaygayga oo igu yidhi hooyadayoo nacashka saaran calashaan waxay ka wadaa hooyadeedoo meel la joogto magaalo la joogto tusaale Hargeysa ay la joogto hooyadeedoo geeriyootay oo nacashka saaran erigay xataa waxay taa kan sii naxayba hooyadayoo nacashka saaran hadduu odaygaygu igu yidhaaha bixin ismaqalkaa wax walba ka muhiimsan wallaahi sheekada masaasa oo ka waran haddii hooyada oo nacashka saaran fursaddii ugu dambeysay aad ku arkaysay ee ahayd aad iska lumisay inaad odaygaaga raali gelisid odaygaaga horta waa caasi haddii uu sidaa kugu amro inantan waa inan iyadu waxay leedahay haddii bay leedahay laakiin waxaan leeyahay haddii oday saasi uu ku guursado ama nin saasi uu ku guursado horta waa nin caasiya ilaahay kuuma keeno nin caasiya waxa awlaada loo dhaxlinayaana waa un caasinimo waxaa dhici doontaa kamaa tadiinu tudaan adiguna maalin maalmaha ka mid a adoo nacashka saaran inantaada odaygeedu inuu u diido inay ku timaado waalidka taad soo marisaa iyana uu kusoo mariyaa waa ilmahaaga kusoo mariya waa garantii xadiid baa jira nabigii sala allahu calayhi wasalam haweeney saxaabiyada uu odaygeedii intuu ka safray buu kula dardaarmay wax walboo dhaco guriga ha ka bixin aabaheed baa xanuunsaday gurigii kamay bixin aabaheed baa geeriyooday gurigii kamay bixin rasuulkii buu usoo sheegay saxaabigii xaaskiisii arrintaa ku amray waxa ay marka rasuulkii uu ku yidhi yani jannadii maaragtay yani inuu ay ajarkeedu uu badnaa oo ka ajar badnayd joogita hadalkay maqlaysay odaygeedu uu ka ajar badnaa xitaa tacsida aabaheed inay tagto ninkani markuu uu kula dardaarmayay arrintan uu lahaa guriga ha ka bixin mu ogeyn hoo aabaha iyo maaragtay familigu inuu aabaheed geeriyoon doono horta mu ogeyn rasuulkiina sala allahu calayhi wasalam gabadhaa wuxuu ku ammaanay odaygeeda hadalkiisii ina ay maqashay laakiin adigu ma tahay saxaabiyadda odaygaagani ma yahay saxaabiga ma lagu soo daliishadaa oo ma la yidhaahdaa gabadh walba oo ninkeedu uu ku yidhaahdo reerkaaga ha u tagin way ku saxsantahay waayo hadda ka hor baa xadiis sidaas uu maaragtay uu nabigii sala allahu calayhi wasalam uu ku amray xaaskiisii waxaan ka wadaa uu saxaabigaasi uu ku amray saxaabiyadda inayna u tagin maaragtay familigeeda ayna soo booqanin amba ay tacsidii waalidkeed ayna aadin maya haddaba waxaan ku dhageysiinayaa caalim kamida culamada sacuudiga sheekh kamida shuyuukhda sacuudiga waxaa la yidhahdaa sheekh sacad alcitiigi ayaa la yidhahdaa sheekh sacad alcitiig baa la yidhahdaa sheekh sacad su-aashan ayuu ka hadlay mas'aladan ayuu ka hadlay haddaba sida uu u tilmaamay videogan ila dhageyso fadlan أبزور أختي أذهب إلى عمي زمجر وأرعد وأقسم أن لا تذهب لهم هذا ظلم وإذا دمعت عين الزوجة شوقا للذهاب لأرحامها ولأهلها وأنت رافض أنت الذي تقف أمام الله عار يوم القيامة إذا أنت رافض أنت ظالم وإذا كانت اللعنة الله تحل على القاطعين للأرحام فإذا كانت الزوجة معذورة لأنك أنت الرافض يخشى عليك أن يحل الغضب عليك والسخط عليك واللعن عليك أعاذني الله وإياك من ذلك wuxuu yidhi gabadha odaygeedu uu u diido in ay booqato faamiligeeda ninkaasi waa nin daalim ah gabadhaasi hadday ka murugooto oy awoodi kari weydo iyadu oo ayna awood u lahayn amba aad ku qasbaysid inayna faamiligeeda soo booqanin oo ay raximkeeda markaasi jarto sababtaada adiga awgeed adiga dulmigaasa ayaa lagugu cadaabayaa ilaahay subxaanahu watacaala adigoo qaawan ayaad hor istaagaysaa buu yidhi
adiga oo dhaalim ah markaas ilaahay subxaanahu watacaala lacnadiisa ayaa kugu dhacaysa waxa aana tahay qof dhaalim ah oo qaatic raxim ah ayaa tahay sheekh sacad alcatiig kaliya kama hadlin waxa kale ee ka hadlay culimo badan runtii waxa weeyaan fiidiyoyadu aad bay u fara badan yihiin dhammaantood waxay ka sheekaynayaan inaanu ninku xaq u lahayn xaaskiisa in uu ka jaro faamiligeeda iska daa hooyada ayoo nacashka saaran ismaqalka nooca gaadhsiisan muxuu yahay ii sheeg haddaba scenario baan ku siinayaa gabadhan dhalinyarada ayaan la hadlayaa ka soo qaad inaad ninkan guursatay uu kugu yidhi hooyada ha u tagin iyadu gabadhan inay gabarh tahay baan jecelahay oo weli la guursan laakiin haddii lagu guursado oo sidaa aad tidhi hooyadaayoo nacashka saaran odaygani uu ku yidhaahdo magaranaysa xaajigaagu ku yidhaahdo ha u tagin oo gurigaad joogtid fursadii qaalisaneyd ee ugu muhiimsaneyd ee dibka ugu soo noqonaynay ahayd inaad wejiga hooyadaa sii aragtid last time markii ugu dambeysay aad sii aragtid noloshaada aad ku beerdaraysay oo aad ku lumisay fursadaasi inaad maqashid xaajigaasi anigoo isaga waxbaba ka sheegahayn oo de qofkan waa qof maal aweel oo waa haddii baad taagan tahay laakiin waxaan diidayaa hooyooyin badan oo nacashka saaran inay cidiba u tagi weydo oo gabadh walba tiraa odagaygiiba sidaa yidhi amba dhalinyaradu intay daawato gabadhan uu nin walba hooyadii oo dhibaataysan amba xanuunsanaysa amba geeriyootay uu gabadhiisa ku yidhaa uma tegi kartid waxa weeyaan daacadda lays adeecayo amba daacadnimada laysu maaragtay ismaqalka qofkaaga aada maqlaysid waa wixii macquulka ahaa laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq inaad ilaahay caasidid qof adoon ah horta kuma raaligelin kartid kumana adeeci kartid ilaahay caasinimadiisu waxa ay tahay inaanad raximka aanad jarin oo aanad u jarin qof awgii aanad u jarin oo aanad raximkaaga jarin sida oo kale waxa weeyaan maanta waalidkaaga caasinimada aad u dhaxashid caruurtaada way kaa dhaxlayaan caruurtaaduna sidaad hooyada ula dhaqantay ayay kula dhaqmayaan waxaynu arki doonaa kolley inantan oo dhowr cisho kadib halkaa intay soo fadhiisato tiraa hooyaday ayaan raali gelinayaa waa khaldanaa inaan sidaa idhaa ma aha waayo waxa weeyaan hooyadeed markay maqasho doodan inanteedii imika waxay tiri hooyo universal t v baan tegayaa dood baan kasoo qayb gelayaa dareenka ma dareemi kartaan hooyadaasi marka ay aragto ma garanaysaa barnaamijka ay aragto ay daawato inanteedii oo leh anigu maxay hayday waxaanin aaminsanahay hooyadeeo nacash saaran hadduu ninkaygu igu yidhaha tegin inaanan u tegin hooyadeedoo nooloo maanta yani waad arkaysaa waa inan dhalinyaro ah waxa laga yaaba hooyadeed inay qof xooga ay tahay oo markay arrintaa maqasho sidee hooyadaasi dareemi doontaa ya tarbiyadda noocaasihi ilaa xadkaas maaragtay qofkii isu sii daciifinayso taas maaha baa raallinimadu waxa weeyaan anigoo maaragtay annisaau shaqaa'iqu rijaal annisaau shaqaa'iqu rijaal labadeenu waxaynu nahay laba aan kala maarmahayn ragga iyo dumarku laba aan kala maarmahayn laba garab isu ah laba gaashaan isu ah laba ismaqlo is ixtiraama laba iyadana hadalkeeda uu ay gabadhuna hadalka odageeda ay adeecdo hadalka macquulka ah isaguna ee aan macsida ku jirin iyo dulmiga uuna ku jirin isaguna uu xaaskiisa la tashado arrinkooda uu noqdo arrin ay ka wada tashadeen imsaakun bimacruuf aw tasriixun biixsaan macruufka gabadha lagu qabo ma waxa weeyaan inaad waalidkeed ka maxarimtid gaalo xataa hadday yihiin waalidkani oo ay muslimba ayna ahayn yani inaad u diidid inay tacsideedii tagto maaha xaaskaaga hab macquula oo sax oo wanaagsan oo diiniyan xitaa bannaan ood kula dhaqmi kartid hadal walba oo dunida yaala waajibka koobaad waa odagaaga ismaqalku waa ka markuu kaarkood oo dibacsan marka la isku sheegay kama fogaanayo adoo u naxariisanay tan kale markii aan ilmo dhalo hablaha markaan ilmo dhalo shulaqa aan noqdade ama aan isku dhex dhaco sidee isku dhex dhacda waa bad ogtahay dad isku dhex dhacda kala raadsanayay sidee isagaashi isqabo haddaba ninkii tacsida hooyada loo tagi waayey hooyadeed oo nacashka saaran ninkii ay u maaragtay ninkii aawage isaga awgay si ay u raali geliso ninkii hooyadeed oo nacash saaran isaga si ay u raali geliso ay ugu tagi weyday
oo tacsidii iyo janaasadii hooyadeed ay u tagi weyday iyada oo meel la joogan oo magaalo la degan iyadu dhowr kiilo oo miisaani hadduu ku kordho waabad ogtay bay tiri inuu kaa tegayo ya salaam dhowr kiilo oo miisaani hadduu ku kordho inagoo og dumarka jirkoodu inuu isbedelo automatically hormoonkooda oo dhammi inuu isbedelo marka ay gabadha uur qaado markay umusho markay naas nuujiso da-da laftigeeda oo qofku siduu u gubayo maaragtay siduu u gubayo marka uu nafaqada jirka gasha siduu qofku u gubayo iyo sida uu faatka u kaydiyo inay ka duwan tahay marka uu 30 ka hooseeyo amba 40 ka hooseeyo amba 40 iyo wixii kasii sareeya u gaaro waxa weeyaan iyo hidaha waxa laga yaabaa gabadh inay marka hore dhuuban tahay laakiin faamiligood wada burburan yihiin markay maaragtay umusho iyadina maaragtay hilibkii reerkooda qaadato amba xataa iyadoo inanaba marka ay maaragtay da gaara soo gaadho inay maaragtay miisaankii faamiligooda u badnaayeen qaadato iyadoo thaqaafadeena iyo dhaqankeena uuna ku jirin dadku dumarku khaasatan oo imika waxaynu soo baranayna inay inantu gym tagto oo jirkeeda ka maaragtay shaqaysiiso ay caafimaad exercise samaysay workout samaysay jirkeedii caafimaad u raadiso iyadoo waxaasi weli inagu wada cusub yahay haddana faaraxan isaga aawadii loo tagi waayo tacsidii hooyada dhowr kiilooyo miisaama hadduu ku koro isagu wuu cararayaayo waabad og tahay bay tiri ya waabay filanaysaa waabad og tahay inuu gabadh kale u tagayaa hayaay arrintaa anigu absolutely kuguma raacsanay awalan miisaanka waxaad isaga dhintaa way ku jirtaa meesha inaad odaygaaga attractive u noqotid oo ku arko qof attractive oo ku arko dee aad magaranaysa isu qurxisid dabcan taas waa wax waajib ah kuma diidani isaguna inuu isu kaa qurxiyo wax waajib ah sidoo kale in aad caafimaadkaaga u carartid exercise u samaysid gym isku soo qortid maaragtay miisaanka iska ridid adiga ayay dan kugu jirtaa cimrigaaga ayaa ku dheeraan kara ilaahay subxaanahu watacaala hadduu ku qadaray inuu sabab kugu noqdo cimriga dheer caafimaadkaaga ayaad ku heli kartaa ilaahay hadduu kugu qadaro insha allah biidni illaahi tacaala wax walba oo maaragtay caafimaada ayaa ku jira exercisekaas iyo sportskaas iyo cuntada isku dheelitiran iyo naftaada oo daryeeshid laakiin waxaa meesha taallaa anigu waaban ogay bay tiri waabad og tahay haddii aad isku dhex daadsantid inuu kaa cararayo uu tu kale raadsanayo oo anu ma waxaan ahay meel ku gaadh maalintaan isku dhex yaaco uu tu kale raadsanayo anigu laakiin hooyaday tacsideeda uma tagay isaga awgiya yacni balanska jacaylka noocaasi muxuu yahay adiguna aad qofkii sidaas heerka u gaadhisid hoos isu sii dhigaysid inuu hadduu wax walba maaragtay uu kugu amro ilaa hooyada tacsideedii dambi walba kugu amro dhulmi walba kugu amro raxim walba oo jirtid uu kugu amro aad samaynaysid isaguna maalinta dhowr kiilo miisaani kugu korodho uu gabadh kale ka raacayo guurka noocaasa iyo baarinimada noocaasa iyo raalinimada noocaasa anigu ma garanayo anigu waxaan garanayaa qofku ixtiraamo aad ixtiraamtid wana ku wanaajiyo aad wanaajid isagu uu yahay qawaamadii reerka madaxii reerka ya adiguna la taliyihiisii iyo xaajiyadiisii maaragtay waxa laga saaray waxa laga sameeyay maaragtay feedhiisi ba laga sameeyay qayb isaga kamid ayaa tahay jacayl iyo raxmad iyo deganaashiyo yani mawadata wa raxma litaskunu ilayha bi rasuul ilaahi subhanahu wa ta'ala yani laba qof oo deganaashiyo iyo naxariis iyo jacayl iyo kalgacal ku wada nool wayna ahaataan laakiin laba qof oo midna ka kala dulminayo oo uu leeyahay ehelkaagii maaragtay uu naar u horseedayo isaguna isugu horseedayo iyadiina ay taagan tahay haddaanad Mrs Perfect ahayn meel kale u tagayaa guurku nooca ma aha baarinimada amba raalinimaduna nooca ma aha baan gabadhan leeyahay iyo gabdhaha sidaa u fikiraba hadalkani waxa weeyaan dood kolley doodeedii unbaan aniguna kasoo jawaabay si shakhsiya inantan dhalinyarada ah uma ataagayo iyo cid kala toona laakiin ra'yigaygii sida iyaduna ra'yigeedii u cabirtay ayaan aniguna ra'yigayga usoo cabiray haddaba intaynu ku kulmi doono barnaamij kale idinkuna horta intaanan ka bixin idinkuna waxaa samayn doontaan insha allah hoosta ayaa kusoo qori doontaan fikirkiinu siduu idin leeyahay insha allah biidni illaahi tacaala haddaba intaynu ku kulmi doono barnaamij kale waxaan jecelahay inaan idinkaga tago mar walba khayr iyo barwaaqo biidni illaahi tacaala istawdactukum allah alladii laa tadiicu wadaa'icu wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh